haddaba daawadayaashana sharafta la waarintaan maanta ka hadlayno ayaa waxay tahay arrin aad looga naxo waayo ma ahan arrin lagu farxi karo maadaama guri dhan oo farxad ku dhisnaa uu burburay misna lamaanayaal ay kala tageen. haddaba daawada aan usoo laabano sheekadeena muhiimadda leh aan maanta ka hadlayno. dad badan waxay ku faraxsanaayeen dadkaasoo taageerayaal dhab ah u ahaa Rasmi Rays iyo Farxaan Yare. farxaanna uu kasoo duulay Hargeysa si uu u nikaaxsado ama uu la aqal galo Rasmi Rays, taasoo ahayd arrin guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee garanaya labada fanaanba ay ku wada farxeen soona dhaweeyeen caleeman ululeen ayaa iminka waxaa laga soo sheegayaa arrin naxdin leh taasoo ah inay is fureen. haddaba daawadayaashana sharafta lahow maxay tahay sababta ay isku fureen? taasaa waxay tahay su-aasha meesha taagan. arrintaas aan jecelnahay inaan ka jaal bixino sina aan idiin bayaanino maadaama markasta aan diyaar u nahay inaan idiin soo bandhigno xaqiiqooyinka jira ee dhabta ah. ayaan daawado waxaan isku daynay inaan ila waraadyo ku dhow labada fanaan kuwaasoo ay ku daydaan lamaanayaasha Soomaaliyeed ay noqoteen ugu dambeyn ay kala tagaan. haddaba su'aalaha aad isweydiinayso ayaa waxay tahay lamaanayaashan waxay ka soo muuqan jireen janaalkooda iyagoo laga dheehan jiray wejigooda farxad. sidoo kale waxay soo duub jireen baraankiyo dadku badankii ee aad uga helaan. sidoo kale waxay tusaale u ahaayeen lamaanayaasha markii loo eego dhanka fanaaniinta oo waxay ahaayeen kuwa u fircoon ee mar walba lagu daydo. maxaa keenay inay isfuraan? haddaba furiinku waxaa baneeyay diinta Islaamka, waxayna u banaysay in labadii qof ay isfahmi waaya ay si nabdoon ku kala tagaan iyagoo xumaan wax la yiraahdo aysan dhex oolin. haddaba markii aan wareysanay ila wareedi ku dhow faamilka qaarkii iyo dad daris la ahba ay noo xaqiijiyeen in ay jirto sabab ay isku fureen. waxaa ka mid ah sababta ugu horeyso in Farxaan Yare uu ka dalbaday Rasmi Rays in janaalka iyadu ay leedahay oo ay magac ka bedesho misna ay u bixiso magac ay ku midaysan yihiin labadooda, taasoo ay community-geeda ku soo bandhigtay dadkuna ay u codeynayeen in ay magac labadooda ay ka siman yihiin u bixiyaan. qof walba uu magac soo sheegayay taasi, balse Rasmi Rays arrintaasi markii ugu dambeysay way ka xumaatay wayna ku booday. waxayna tiri adigu jinaal ayaad leedahay, waa inaad jinaalkaaga muuqaalo soo dhigato, anna jinaalkayga aan muuqaalo soo dhigto. taasoo ay u sababeysay in magaca Rasmi Rays ay ku leedahay dallad dhan oo taageerayaal ah. haddii ay bedeshana ay saameyn ku yeelanayso magacii masabka ay leedahay, isaguna uu taageerayaal leeyahay. mid walba magaciisa ay u soo raadiyaan si qof walba taageerayaashiisa uu waa qabtiro YouTube janaalka oo leeyahay, balse mar walba ay gorb si doonto sida janaalkiisii ay u kala kicin lahayd, isna mar walba ay kula soo muuqan doono janaalkeeda. taas ayaa waxay tahay sababta koowaad ay isku dagaaleen. Farxaan uu rabay inay ku midoobaan magaca janaalkaasi maadaama ay yihiin lamaanayaal si dhab isku jecel misna ay isqaba ay tahay inay wax walba wadaagaan, misna qof walba uu wax gaar u lahayn maadaama noloshoodii ay tahay mid qura. Rasmi Rays markii go'aankaasi way qaadatay, balse markii dad badan ay la taliyeen walow dadku badankii ay jecel yihiin dadka ay isku diraan ay la xumaatay arrintaasi inay samayso. taasi waa sababta koowaad. sababta labaad ayaa waxay tahay Farxaan Yare wuxuu ka yimid magaalada Hargeysa. faamilkiisu waxay ka codsadeen in gacalisiisa oo u soo raro magaalada Hargeysa. walow dhawaan ay booqasho ku joogeen magaaladaasi ayaa wuxuu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo in magaalada Nairobi ay ka soo guurto misna ay soo degto magaalada Hargeysa, halkaasna ay ku noolaadaan noloshoodana ay ku maareeyaan, isna ay u fududahay maadaama dhulkiisii iyo magaaladiisii ay tahay inuu fankiisii hore ugu sii wado, maadaama sida uu ku andacoonayay magaalada Nairobi ay ku adag tahay nolol ahaan misna asxaab fara badan uu ku lahayn boorin uu ku dareemayo. balse haddii ay Hargeysa la soo degto wax walba ay u fududaa doonaan, lagana rabo sharcina ay tahay gabadha la qabaahay in uu geesto ninka meel alaal meesha uu doonayo misna uu ku dhaqan karo. Rasmi Rays arrintaas way ka biyadiiday maadaama ayna ku andacoonaysay in magaalada Nairobi uu yaalo ganacsigeeda, ay joogaan faamilkeeda misna ay ka tahay boqorad laga jecel yahay magaaladaasi. taas waxay ahayd sababta labaad ay isku fahmi waayeen. haddaba maxay tahay sababta saddexaad? waxaa jiray dad isku dirdirayay lamaanayaasha dhexdooda misna iskaga sheegayay warar qaldan.
walo mar walba ay social media ku soo bandhigayeen ama YouTube channelka Rasmirays leedahay in mid kale ku kalsoon yahay balse hadii qof kale cadayn yani been abuur ah laakiin qofka uu rumaysan karo la tuso yani qofku aaminayo sababta qofka maskax ayuu leeyahay maskaxdiisa hadii loo sheego waxa galaayo isku dir am wax walba haadan way galaya ugu dambeyn waxa dhacday in yani meeshaas uu buuq ka dhasho oo ay dhacday saas maxaa u sameysay san maxaa u sameysay hadaba aan ku soo aruurino markii dhibaatadii ay badatay buuqii oo batay waxa isku dayay inay soo kala dhaxgalaan fanaaniintii jooga qaar Hargeysa qaarna ay Nairobi joogeen oo qad telefoonka ay isku dayeen inay ka xaliyaan ugu horeey Idlayare kaasoo ah nabadoonka fanaaniinta magaalada Nairobi sidoo kale waxa magaalada Hargeysa isku dayay inuu arintaas ka xaliyo Axmed Wali Furunle iyo fanaaniin kale oo caan ah si ay arintaas u guda galaan guntii gabagabadii arintu waxay gaartay fanaaniin way dhaaftay abwaano way dhaaftay mulaxamiin way dhaaftay musicians way dhaaftay arintu waxay gaartay labada family waxay isku dayeen arintaas inay xaliyaan balse ugu dambeyn waxa go'aan rasmi qaatay Farxaan Yare go'aanka qofka qaatay ma aysan ahayn Rasmirays daawade go'aanka waxa qaatay Farxaan Yare kaas oo u sheegay familkiisa iyo dhammaan fanaaniinta iyo dhammaan asxaabtii u dhaweedba in intaas uga egyahay xiriirka ama guurka kala dhaxeeyo Rasmirays way oysay way barooratay dhibaatadana waxay ka xalismis waxay iyada oo madax adeeg badan sameeynayay balse markii qof dumar lagu yiraahdo waan ku furayaa badana dumarku aad bay u ilmeeyaan balse intaas wixii ka dambeeyay markii arinta la isku dayay in la xaliyo ugu dambeyn Farxaan go'aan qaatay hadaba lamaanayaashani ayaa jaceelkooda wuxuu ka bilaawday magaalada Hargeysa oo Farxaan joogay iyo magaalada Nairobi ay joogtay Rasmirays halkaas oo jaceelkooda ka sii ambaqaaday misna uu noqday mid dabagal ah ugu dambeyn uu miro dhalay Farxaan oo ahaa fanaan da'yar markaas soo shacbaxayay ayaa waxa ka heshay misna jaceyl waali uu qaaday Rasmirays oo markaas iyana ahayd fanaanad inay soo heesto soo bilaawday sanad ka hor misna lahayd taageerayaal aad u fara badan daawadayaasha sharafta leh aan ku sii socono muhiimadda markii dambe waxa suurta gashay inay isguursadaan misna ay noqdaan lamaanayaal si dhab isku jecel janaalkooda ay waxay soo dhigi jireen muuqaalo xiiso leh oo badan barankiyada halkii barank uu yaraan waxa daawo jirtay nus milyan taasi oo cadeynaysa in dhammaan taageeraashii Farxaan uu lahaa iyo taageeraashii Rasmirays ay lahayd ay midoobeen hadii ay midoobaanna muuqaalka ay soo wada dhigayaan uu badnaa karo fiisahan taasi oo janaalkii Rasmirays uu sameeyay horumar aad u weyn taas oo aan dhigi karno misna aan marqaati ka ahay horumarkaas waxa qayb ka ahaa Farxaan Yare sidaa darteed ma aysan habooneyn in Rasmirays janaalkeeda ay isleeysiido misna ay tiraahdo magac ma bedelay guntii gabagabadii aad baan uga xumaad arintaasi waan ka naxay waayo waxaan uga naxay ay waxay tahay lamaanayaashani hadii ay mar walba murmi jireen hadii ay mar walba dhibaato ka dhex taagneed dadku ay ku dhibanaan inay xaliyaan caado ay noqotay inay dagaalaan hadii ay kala tagaan yani dadku sidaa uga manixleen waayo dad waxay ahaayeen mar walba isku dhibana laakiin daawada maxaad maleyn kartaa laba qof oo isku faraxsanaa jaceelkoodii u ahaa mid jiro hadii lagu dhaho way kala tageen aad baad uga naxaysaa hadii aad qof noloshii wax ka yaqaano guntii gabagabadii adaan u soo laabano runaantii arintaas aad baan uga naxay markii aan xiriir badan la sameeyay Rasmirays iyo Farxaan Yarana ay ii sheegeen in arintaas ay go'aan ku gaareen misna iyagoo isku qanacsan ay ku kala tageen walow Rasmirays aad uga xumeed aad u ilmeynaysay maadaama jaceelka Farxaan Yar uu ku weynaa ayaa Farxaan Yar wuxuu ugu dambeyn go'aan ku qaatay inuu iska furo Rasmirays arintaasoo shalay ilaa daraad ilaa maanta ka taagan social media taasoo dadku badankii ay la naxsan yihiin qaar ay la amkaagsan yihiin qaar cadow ku ah labada shakhsina ay ku faraxsan yihiin waayo dhibaatada ay timaado dad way ku farxaan dadna way ka naxaan dadka ka naxay waxa weeyaan dadka labada qof wadajirkooda isla jeclaa inay wada noolaadaan dadka ku farxayeen waa dad ku faraxsanaa inay ka liirdhoobaan haddaba daawadayaasha sharafta lahow Rasmirays arinta ay ka xuntahay waxay tahay in magaalada Nairobi markii ku soo dhaweysay farxad ku noolaayeen balse markii magaalada Hargeysa ay u raacday gacliheeda halkaas ay kala kulantay dhibaatooyin badan iyo caqabado badan maantana ay tahay gabar garoob ah ku nool magaalada Hargeysa xitaa magaaladeedii aan u laaba karin maadaama guud ahaan duulimadyadii ay xayiran yihiin oo helin aan ku haysanin Farxaanna dadka qaarkii ay ku eedeynayaan in markii magaaladiisii uu la tagay uu cidileeyay
gabadhaasina maanta ay tahay wehel la'aan walow ay fanaaniinta magaalada Hargeysa mar walba ay garab taagan yihiin niyadana u dhisayaan misna ay qorsheynayso in ay magaalada Nairobi ku laabo doonto mar allaala markii duulimaadyada la fasaxo maadaama bilihii ugu dambeeyay duulimaadyada caalamka la xayiray maadaama cudur aad u weyn u halakeeyay ayaa Rasmirees hadda waxay ku nooshahay guriga weyn Hodan Cabdiraxmaan ay ka degan tahay magaalada Hargeysa halkaas mar walba ay fanaaniinta ku sawirsiinayaan Rasmireesna ay leedahay wuu qiyaamay anyway daawadana sharafta leh arintaas wixii ka soo kordho dib baan kala soo doonaa hadii ay tahay daawad markii ugu horeysay aad channelkana soo booqato rakuma channelka oo subscribe saaro furana gambaleelka si aad u noqdo daawada ugu horeeya ee hela muuqaaladan halkan soo galino daawadana sharafta leh mar walba waxaan diyaar u nahay inaan ku soo gudbin muuqaalada xaqiiqada ah taasi aan mar walba update kaaga dhigeen waxyaabaha cusub hadaba daawadana sharafta leh waxaan ku rajaynaynaa waqti qurux badan iyo caafimaad